William Ruto noqday madaxweynaha shanaad ee Kenya ee xukunka la wareegay waa kuma 1997 ayuu soo noqday xildhibaan laga soo doortay gobolka Waqooyiga Eldoret. William Ruto wuxuu siyaasadda soo galay markuu jaamacadda Nairobi ka qalin jabiyay kadib. Halkani waa barnaamijka wixii cusub ee aad kala socotaan Gaacir Media Tube. Dhageystayaasheen iyo daawadayaasheen sharafta mudan inta aan u guda galin faahfaahinta warbixintaas, fadlan subscribe, share, like iyo follow page-ka iyo channel-ka Gaacir Media Tube ee aan ku leenahay YouTube-ka iyo Facebook-ka. Mahadsanidin. aan ku bilowno. Magaciisu waxaa la yiraahdaa William Kipchirchir Samoei Arap Ruto. waa 55 sano jir, dhashay sanadkii 1966. waa aqoon-yahan haysta shahaadada PhD-da kuna takhasusay culuumta beeraha. William Ruto ayaa siyaasadda dalka Kenya ku soo biiray kadib qalin jabintiisii jaamacadda Nairobi 1997. laga soo bilaabo wuxuu soo noqday xildhibaan laga soo doorto kana tirsanaa golaha wakiilada shacabka waqooyiga gobolka Eldoret. William Ruto ayaa yidhi way dhammaatay xilligii Kenyaanka cabsi darteed ay WhatsApp-ka ugu wada hadli jireen. Markuu noqday xildhibaan kadib wuxuu soo qabtay xilal kala duwan oo heer wasiirnimo ah. Tusaale ahaan xilligii madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi. waqtigaas wuxuu soo noqday ama soo qabtay xilka wasiirka arrimaha gudaha. Sidoo kale xilligii madaxweynihii hore Mwai Kibaki wuxuu soo qabtay xilka wasiirka beeraha. 10kii sano ee ugu dambeysana wuxuu la soo shaqeeyay madaxweynaha xilka ka degay Mr. Uhuru Kenyatta, isagoo soo qabtay xilka madaxweyne ku-xigeenka Kenya. William Ruto wuxuu aqalgalay 1991 waana aabbo dhalay 7 carruur ah. Waxaa la sheegaa William Ruto inuu taajir ku noqday maalgelin uu ku sameeyay digaaga. Sidoo kale marar badan waxaa la sheegaa ama loo soo jeediyaa dhaleecooyin oranaya in uu musuq galay ama uu wax musuqay. Doorashada madaxweynenimo ee sanadkan 2022 ka dhacday dalka Kenya, William Ruto isagoo matalaya xisbiga Midowga Dimuqraadiyadda ayuu la tartamay dhigiisa Mr. Raila Odinga, taasoo Ruto uu ku guuleystay doorashada. Sidaas darteed, William Ruto ayaa noqday madaxweynihii shanaad ee Kenya isagoo xilka haynaya 5 sano ee soo socota. Ruto ayaa xilka madaxweynenimo loo dhaariyay maalintii Talaadada, taariikhdu ahayd 13 bisha Sebtembar 2022. Waxaa xusid mudan guushii Ruto ee doorashada kadib in Raila Odinga uu qaadacay natiijada doorashada, heer markii dambe Raila Odinga uu dacwadiisa gaarsiiyay maxkamadda sare ee Kenya, taasoo maxkamaddu markii dambe go'aan ah in uu William Ruto guuleystay soo saartay. Dhageystayaasheen iyo daawadayaasheen sharafta mudan, intaa waxaa inaga barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube. barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono nabadiino.